kulan wacan daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan iyo si walba aan noo maqlaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee Heegan Media qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah ciidamada dawladda oo la wareegay deegaano cusub musharaxiinta Jubbaland oo shuruud adag ku xiray ka qaybgalka doorashada Jubbaland oo shaacisay tilabada ay ka qaadayso odayaasha qaata amarka al-shabaab iyo xaalad adag oo la galiyay dalka Philippines intaas waxa ay qodobada ugu door karoon barnaamijka iminkana u diyaar garooba ayagoo oo faahfaahsan boqorka ogo been ma sheegay bishima afkii qorta buuxda idilay bari iyo galbeed adanka baafiyo baadidanka gibaan dhulka baade u maray aan ku bilaabo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaranay danab ayaa dhaqdhaqaaqiyo ciidan iyo hawlgalla ka dhanah al-shabaab waxa ay ka wadaan tuulooyin hoos yimaada degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose cutubyo ka tirsan ciidanka Commandos-ka Soomaaliya ayaa saaki gudaha u galay deegaanka Malable oo hoostaga degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen xarakada al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ay hawlgal ka wadaan deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dawladda ayaa shalay la wareegay degmada Awdhiigle iyo deegaano hoos yimaada oo ay muddo dhowr sano ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab musharaxiinta Jubbaland ayaa shuruud adag ku xiray ka qaybgalka doorashada kadib kulan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen musharaxiinta la magac baxay midowga musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland iyo wafti ka socda urur goboleedka IGAD ayaa musharaxiintu waxa ay shuruudo adag ku xireen ka qaybgalka doorashada Jubbaland shuruudaha oo ka koobnaa 8 qodob ayaa midowga musharaxiintu waxa ay hordhigeen waftiga ka socday urur goboleedka IGAD iyaga oo dalbaday in loo gudbiyo dawladaha daneeya Soomaaliya 8 qodob ee ka soo baxay midowga musharaxiinta Jubbaland ayaa waxay u qornaayeen sida tan kow in xildhibaanada ay soo xulaan odayaasha saxda ah ee Jubbaland laba in hal qof loo soo xulo kursiga xildhibaan saddex in doorashada madaxweynaha Jubbaland ay baarlamaanka Jubbaland qabtaan in doorashadu ay ku dhacdo goob ka madax banaan xarumaha maamulka Jubbaland sida xarunta qaramada midoobay shan in ammaanka goobta doorashada iyo ammaanka musharaxiinta ay sugaan ciidamada AMISOM lix in doorashada Jubbaland ay goobjoog ka noqdaan xubno ka socda dawladda federaalka toddoba in goobjoogayaal caalami ah loo helo sida xubno ka socda beesha caalamka qodobka sideedaad ugu dambeeya ayaa ah in warbaahinta gudaha iyo tan dibadda ay goobjoog ka ahaadaan doorashada lama oga in madaxda Jubbaland ee haatan waqtigoodu si dhamaanaya ay ogolaan doonaan shuruudaha ay soo bandhigeen xubnaha midowga musharaxiinta Jubbaland iyada oo doorashada Jubbaland xilligan ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii horay u dhici jiray Jubbaland ayaa shaacisay tilabada ay ka qaadayso odayaasha qaata amarka al-shabaab iyadoo ay dhawaan al-shabaab soo bandhigtay qaybtii u horeysay ee odayaashii ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka iska diiwaangeliyay xarumaha al-shabaab ayaa warkaas soo baxay maamulka Jubbaland waxa digniin loogu diray odayaashaas la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Jubbaland Cabdi Mahdi Cabdisalaan ayaa sheegay in tilaabo ay ka qaadayaan odayaashaas isagoo oo xusay in odayaashii u taga al-shabaab ayaguna ay la mid yihiin al-shabaab sidoo oo kale waxa uu ga digay odayaasha ku nool deegaanada Jubbaland in ay qaataan amarada al-shabaab cidii qaadatana aysan ku soo laaban karin deegaanada Jubbaland Cabdi Mahdi Cabdisalaan ayaa sidoo oo kale sheegay in odayaashu ay la kulmi doonaan ciqaab ay ka mid yihiin ganaax iyo xabsi muddo 6 bilood tirina wuxuu ganaaxan keenayaa 2 qori oo small arms oo maxayda lagu ganaaxaya taas oo looga jeedo inaysan galaangal ku yeelanin nimanka argagixisadii odayaasha iyo waxgaradka reer Jubbaland oo aysan maxay u adeegsanin waxaan sugaynaa ama waxaan runtii maxay ballan qaadaynaa haddii ay jiraan odayaal khalkhal qaba ama ka walwalaya xagga nabadgelyada inay la soo xiriiraan goobaha deegaamada ay ku sugan yihiin si ammaankooda si wanaagsan loogu sugo laakiin aysan ku riyoon marnaba inay maxay hayday ammaan dartiis ay marsiiro doontaan cidii halka tagtay waa ciidan dib ugu soo laabanayn Jubbaland go'aankaasna la gaaray maanta in ka badan 150 oday dhaqameed oo ka tirsan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaalida ayaa maalmihii la soo dhaafay iska diiwaangeliyay xarumaha al-shabaab ee ku yaala gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iminkana Philippines dawladda Philippines ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii dad gaaraya 620 qof ay u dhinteen xanuunka dengue oo ah cudur ay gudbisa kareecada teeda dhadiga ah wasiirka caafimaadka Philippines ninka la yiraahdo Francisco ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa bishii July la diiwaan geliyay kiis gaaraya 146,000 oo qof oo ku dhacay cudurka dengue taas oo micnaheedu noqonaya in 98% uu sare u kacay xawliga uu ku
socdo faafista cudurka marka la barbar dhigo sanadihii hore. Waxa uu sheegay in xaaladda degdega ah ay u ogolaanayso dowladaha hoose ee magaalooyinka in ay helaan kaalmo degdeg ah oo ay kula tacaalaan cudurka. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in cudurka dhiinga uu leeyahay xumad sarreysa sidoo kalena uu qofka ku sababo xanuun ka yimaada kalagoysyada jirka, matag, nabarro ka soo baxa jirka, dhibaato dhanka neefta ah, dhiigbax iyo qaybo ka mid ah xubnaha jirka oo shaqadooda gaba. Wanaga intaa wararkii duurnimo ee Hegan Media waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Si aad wararkan iyo warar kaleba mar walba aad u hesho fadlan subscribe saar janaalka Hegan Media. tan iyo kulankeena kan xiga waa Shuka Aadan Gurayo idin leh nabadgelyo.